99 oo 45 iyo ka badan lagu socon karayo in cunug yar uu meesha wadada cross gareeyo qofna maxaa ku aqligiisa ma siin karayo chanceska uu qofka leeyahay inuu badbaado waayo waxa weeye arin riski ah uu qofka faraha la galiya cunuga yarka cid ay ahaataba marka maxaa diidaya marka aad faraha la gashid waxyaalo badan oo caafimaadkaaga shaqo ku leh cunadaadii waa kamid ah dhaqdhaqaaqaagii waa kamid ah waxyaalo badan oo maskaxdaadii waa kamid ah waxyaalo badan oo maxaa la dhihi jiray naftaadii maxaa ku wanaajin lahaa baa kamid ah marka waxaan isleeyahay hadduu alla idmo intaas ku soo qatimaya wixii su'aalaana insha Allah wadi weydiin karaysaan haddaysan su'aal jirinna muhiimadda aan ugu talagalay caawa waxay ahayd in aan isla ogaano haddii aan ku saxsanahayna aad igu raacdaan haddii aan ku qaldanahay oo aayaadka iyo axaadiista aan maxaa la dhihi jiray meelaysan ku habboonay aan dhigayna taas culimmada ayna saxaysa iyo ciddii markaa iga aqoon roon laakiinse waxay ila qunnaatay dadka iyaga marka hore sheekadu waxa weeye dood kasta ama aqoon kasta ama wacyigelin kasta waxay faraha la gelaysaa qadar waxay faraha la gelaysaa waxyaalo badan oo negligence ah marka qofkiina waa qof markasta tukanaya oo Allah subhanahu wa ta'ala diyaar ah inuu caabudo oo diyaar waa inuu wax sameeyo at the same time maxaan ku radaa wixii baa wax isdiidaya agteeda ka noqon weeyay marka si baabka uu dhinaciga dhaco ayaa waxa barnaamijka ugu talagalay caafimaadka 101 in Islam ayaan jeclahay inaan inta ku soo gabagabeeyo wixii su'aalahana way furan yihiin waqtigan waxaan umaleeyahay in maqashii soo dhaweeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jazakallahu khayr akh Muhammad Ilaahan siyo insha Allah qofkii su'aal qaba insha Allah mikrofoonka loo keenayo any questions السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وما حي كوليسترولكو محاسة عدو قفو قطعو لي ريسك موية حي أما لقداوي بسم الله sida aan ku sheegay qaybtii ugu horeysay ama waxaan u maleynayaa slide-kii ugu horreeyay inuu ahaa markaan afeefanayay cilmigu waa isku dhaxyaac ma ahan oo qof waliba takhasus gaara buu leeyahay wax baan kaaga bidhaamin karaa su-aashaada jawaabteeda laakiin ma noqonayso maxaan kula jawaabtii ugu dambeysay aan bixin lahaa ama cid iga aqoon ay bixin lahayd markaan isku soo duubo waxaan kuu siinayaa as a public health perspective anigu takhasuskaygu dhakhtar ma aha oo dhakhtarku haddii aan macnaa kole iyadana waxay u baahan tahay topic kale oo u baahan in la kala caddeeyo xirfaduhu waxay isugu jiraan mid caafimaadka ijtimaaciga ah oo caafimaadka guud tusaale ahaan tababarkaygu waxa weeyaan sida cabdiraxmaan uu sheegay global health ama maxaa la dhihi jiray caafimaadka guud deegaan degmo wadan King County oo kale ku nool 100 maxaan kale milyanka ay barka ahaa ama qayb markaa ku takhasustay oo ka soo qaashaqadeedu ay tahay caafimaadka beerka kale ee kan Washington State waxyaabo noocaas kale ah iyo maxaan ku raad qofka public health ku qabanaya marka si aan wax kaaga bidhaamiyo cholesterol inkastoo doctor Muumin iyo dhaqaatiir kale iyo aad maxaan ku raad arintaas aad u baahanaysiin aad dib u sii raacid cholesterolka iyo waxa naga quseeya ee caawa maxaan ku raad aad u baahanay qof kasta inuu ogaado waxay tahay cholesterol waa dux ama dufan jirkaygu u baahan yahay oo beerka uu sameeyo oo waxyaabo badan oo jirku u baahan yahay ayay maxaa la dhihi jiray qayb ka tahay marka cholesterolki noocaas ahaa ayaa waxaa jirta noocyo kala duwan bay leedahay waa lipoproteins mid baa la yiraahdaa HDL oo high lipoprotein loo yaqaano mid baa jirta low density maxaa kala lipoprotein oo hoose midna waa total cholesterol ama total fat wax noocaas oo kala ah oo jirkeena ku wada jira marka arintaas oo kale macna marka laga hadlayo cholesterolkii waxyaabo aad loogu sii dheefogaan kara marka jawaabtu waxaan ku siinayaa waxay tahay yes cholesterol waa wax jirka u baahan yahay oo aan laga maarmayn laakiin cholesterolka lagu sheegay ee jirkaaga aan u baahnayn ee wadnahaaga aanu jeclayn inuu si hayo ee dhibaatada ku keenaysa wadna xanuun ku keenaysa qof dadka badankood stroke iyo wadna xanuun u keenta waxay tahay
waxa loo yaqaan cholesterolka ka yimaada animal fats oo dadka ay wanaag u jecel yihiin ay oo dhaqanka iyaga ah hilib arigan cunaa haddana geel bay ku darsadeen waxyaalo badan oo maxaan ku radaa animal fatka oo beefku uu ku jiro marka red meat kaas waxa loo yaqaan hilibka gaduudan waxa la socota xeer dixda la socota waxay wadataa waxa loo yaqaan saturated fat dhergan ama dhergsan sida lagu sheegay dugsiga hoose ee sare saturated fat kaasi ayaa waxa ka buuxa marka waxa loo yaqaan low cholesterol density cholesterol midan LDL ka loo yaqaan ee bad cholesterol ka marka waxay noqonaysaa qofka hadii uu ka dhigto maxaa karada inuu cunadiisa uu saaba ay noqoto oo qofku uu joogtaysto oo uu ka hari waayo oo cidina marka dhici karto qofku inuu dhaqan iyo uusan u lahaabo weligiisa wax kala haysan haddii taa ay tahay waaba marka ma garanayo laakiin waxa aan rabo inaan qofka uga digaa waxay tahay cunada ay cunaysa waxay ka timaadaa low cholesterol kaasi iyo fatkaas dhamaantii wuxuu ka yimaadaa animal fatka hilib ariga gaar ahaan geela lo'da ayuu ka yimaadaa chickenku wuu ku yar yahay haddii uu jiraan maxaan ku radaa marka laga saaro fatka yarka ee chickenku uu wato maxaan ku radaa waaba zero fat marka calaa kulli xaal cholesterolka noocaasa qofka haddii uu badsado waxay noqonaysaa in jirkiisa ay ku badato haddii jirkiisa dhiigga ay ku badataana waxay noqonaysaa in xibnaha ama vesselska dhiigga qaada oo loo yaqaan maxaan ku radaa tubeska dhiigga uu maro siba kuwa wadnaha gaara in ay maxaan ku radaa marka tuubada biyuhu ay maraan waad garanaysaa sibay u daxalaysataa markay daxalaysato marmar baa waxaa dhacda oo dadaad aragtay in ay biyuhu meel ay maraan waayaan sababtoo ah waa mirtay wixii dhanba waa xirmeen sidaas oo kale ayay maxaan ku radaa dhuumooyinka dhiigga qaada ayay maxaa cholesterolka uu u dahaaraa oo waxa loo yaqaan black book sameeyaa wuu madoobeeyaa dabadeedna haddii wixii ku bataan oo qofkii uu joogtaba caadadiisu ay tahay inuusan hilib ari iyo geel iyo lo iyo uusan ka kicinba oo mar kastaba waxa cunayo oo haddana maxaa u dheer tahay inuu physical activity jimicsigiisa jirkiisa aysan maxaa socodba lahayn waxay noqonaysaa marka in ay dhuumahaasi ay naaro garo ay xirmaan dabadeedna uu markuu dhuumahaas ay xirmaan waxay noqonaysaa marka waa adiga tuuba hadaa qabatida biyo ay ka socdeen marka aad ciijisaa biyo pressure bay sameynayaan pressureka biyo ay sameynayaan marka waxay noqonaysaa qofka waxay ku keenaysaa cholesterolkii waa kow oo wadnay dhibaato u keenaya dabadeedna waxa meesha ka dhashay tubadii xirantay pressurkii wadnaha ay ku furtay iyana blood pressure baa ka imaanaya oo kale wixii dhan waa isku wataa marka cholesterolkii blood pressurkii iyo muxuu ah kii kale waxay damba marka waxay keenaysaa in wadnahaaga ay waxaan dhihi jiray marka dambe ay dhulka soo dhiganto stroke u dhaco oo wadna xanuun u dhaco halkaana maxaa ku radaa meeshaan xirantay oo balaagaraysatay in maxaa ku radaa qaliin malaayiin dollar ah aad mudatid waxaasoo dhan waxay ka imaan karaan as a public health perspective waxyaalo sahlan oo qofka uu avoid karo waa is avoidable sida ay maxaa ku radaa dadkuba sheegayaan oo dawladdu ay sheegayso waxyaalaha dadka iyagu ay aad kugu liitaan minority-ga ama Soomaalideenan oo kale oo aan doonay dadku inay aad uga fahmaan waxay tahay war number yar baad ku joogtaa deegaanka kan dad waxaa kugu hareeraysan malaayiin qof ah marka ma dhici karayso 10 years in 20 years in aad maxaa la dhihi jiray isbedelka noocaas oo kale uu yimaado haday dhacdana intii hasanayd baa iyana jidkaasi maraysa waxaad arkaysaa qof baa maalin kastaba beer u xanuunsanaya oo late stage la ogaanaya isagoo beerkii kansar kaga dhacay reerkii baa xeeb weeyaan lama sheegi karayo cid marabta inay sheegto reerka dhan macal qabiilkoodii ba xataa ma raba inay sheegaan oo maxaa kale la maqlo markay waxa lagu imtixaamay waxa leeyahay reerkaasi nin kasar leh baa ka dhashay oo maxaa wax noocaas oo kale ku arkaan marka wax cusubna ma aha laakiin nasiib darradu waxay tahay qarniga kan aynu joogno iyo saacada aynu joogno ee 2013 ka ah baa waxaynu maraynaa wax dadku ay soo dhaafeen boqolaal sano la soo dhaafay marka taawiyada aan doonay dadku inay u baraarugaan cholesterolka ay sheegayso qofka wuxuu yahay waxyaalo la iska ilaalin karayo oo laga hortagi karo ayuu ka xasilmaa taasana insha Allah loo baahan yahay dadku inay u baraarugaan ولا قهر يا سمع بسم الله محمد علي waxaan soo weynay dadka anaga wadanka ku cusub oo cuduradu bateen
waxaa noo keenay